الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وهي سنته إلى يوم الدين. أما بعد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. waxaan kaga hadlaynaa darsigan insha allahu tacaala towxiidka iyo ruuxu inuu qiro an laa ilaaha ilaah inuuna jirin ila allah alla mooye. wa qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila. ulaa'ika kuwaasi yani ahluliimaankaasi aladiina kuwa yadcuuna baryayay alle yabtaquuna waxay waraadinayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiida alwasiilata wasiilo gaadhsiisa ayuhum aqrabu kii ugu dhow. wasiilada ilaahay ku gaadhsiinaysaa waxa weeyaan cibaadada. wasiilada waxaa la yidhaha shay aad ilaahay ugu dhowaanayso. wasiilada meeshan laga hadlayaa waxa weeye in ruuxu uu iimaan leeyahay uu camal saalix samaynayo. wa qowluhu tacaalaa وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وإذ وقت قال إبراهيم لأبيه آبيه بكيري آبيه وحلو نجري آزر وقومه قرضي وكذا شيء وكيري إني أنيgu baraa-un beri baan idinka ahay mimaa tacbuduuna baan beri ka ahay. waxaad caabudaysaan asnaamtan aad caabudaysaan baan beri ka ahay oo waan ka fogaayay. innii baraa-un beri baan ka ahay, macnaha shaqo kuma lihi wey. ila aladii ilaahay un baan anigu caabudayaa fadaranii i abuuray. ila aladii ilaahay baan beri u noqon alladii fadaranii waxaan aadayaa un caabudayaa ilaahii i abuuray. fadaranii i abuur bilowday weeye. wa qowluhu tacaala ilaahay aayad kalena wuxuu ku yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah. ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum kuwoodii culimadoodii wa ruhbaanahum kuwoodii ilaahay caabudayay culimada ah, yani kuwii caabudayey ruhbaanka waxaa la yidhaha dadka ilaahay caabuda, laakiin ruhbaanta waxaa loo jeedaa dadkii kolkaa waxa weye nasaarada ahaa ee ku jiray jaajka ku jiray. arbaaban ilaahiyay ka dhigteen, kuwaasay waxay ka dhigteen culimadoodii iyo caalimiintoodii waxay ka dhigteen arbaab rabbiyaal min duunillahi ilaahay inta ka sokaysa. aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wa min annaasi man yatakhidu wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man ruux yatakhidu ka yeelanaya min duunillaahi ilaahay inta ka sokaysa andaadan sanamyaalo wax ilaahay did ku ah. yuxibuunahum way jecel yihiin ka xubillaahi say mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin bay u jecel yihiin kuwaa sida mu'minku uu rabbiga u jecel yahay ayay iyaguna sanamyaalkaa u jecel yihiin. laakiin waladiina aamanuu kuwii ilaahay iimaanka siiyey baa ashaddu ka daran xubban xagga jacaylka lilaahi ilaahay ay jecel yihiin. laakiin kuwa ilaahay ma aragtay iimaanka siiyey yaa ka xubbigoodu ka badan yahay oo iimaankoodu ka wen yahay. wa fi saxiixi waxaa laga xadiiska saxiixa waxaa ku jiray bukhaari can nabiyi sala allahu alay wasalam nabiga wuxuu ka wariy annahu qaala nabigu wuxuu yidhi man qaala ninka yidhaha laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooye ninka yidhaah oo kafara ka gaalooba bimaa yucbadu min duuni illaahi waxa ilaahay inta ka sokaysa la caabudinada ka gaalooba xaruma maaluhu maalkiisu waa xaraam in la taabto, wa damuhu dhiiggiisuna waa xaraam, wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allaahi ilaahay casa wajal. xoolihiisa lama taaban karo, isaga lama dili karo. intaa wixii ka dambeeya xisaabtiisa ilaahay baa xisaabinaya. yani aduu wixii daahirka ahaa shareecada daahirkii waa hogaansamay ninkaasi, wixii intaa ka badanee hoose ee qarsoonna isagii rabbigii baa iska xisaabtamaya. marka meesha waxaan ka fahmaynaa fadliga kelimatu laa ilaaha ila allah ay leedahay. baabun min ashirki lubsu alxalaqati waalkhayti wa naxwihimaa.
لرفع البلاء أو دفع مضرة، لرفع بلاء أو دفعه. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. باب كان وحو باب ياهي من الشرك قال نمد واحد كمده لبس الحلقة إنه الروح واحد اسكو حرحرو. حلقة وحوية وحيالا اسكو حرحرو oo yaryaro yani sida bir oo kale iyo gacmaha lagu xidho. والخيد دن يونحمي خيد دن بعد اسكو حري يونحمي ما وحي لمده هذا حرتي لرفع البلاء بلاء إنه إلهي كاغا قادو كو هيسا أو دفعه أما دب soo socda in lagaaga dafciyo. in dhib soo socda ay kaa difaacaan baad xadhiggaa u xidhatay yaad u xidhatay waxyaalaha sindiyaha iyo dunta. arrintaasi gaalnimaday ka mid tahay. وقوله تعالى إلهي وحيد سبحانه وتعالى الله وحيد قل وحاترا أفرأيتم بل إيه والرمى ما كي تدعون أدبر يسين من دون الله إلهي أنت كسوك سوحي أدبر يسين يا وحي كي أدبر يسين إلهي أنت كسوك يسين إن أرادني الله بضر هدو الله دب إلى الدهن هل هن كاشفات الضر در كما يقيد دفعنيا kuwaas aad caabudayseen ilaahay inta ka sokaysa hadduu ilaahay dhib ila doono dhibka ma iga dafcinayaan ku dhisaa ka laawey wax dhib oo ay kaa dafcinayaan haba yaraata ma jiro. sanam isagaaba dee sanam waaba saamid wax fadhiyo weeye oo waxba kala garanayn muxuu kaa dafcinaya muxuu kaa difaaci hawshaas ma jirto weeyaan. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي رأى رجلا نبو أركي بيده قعنتيس حلقة من سفر وهل بكحرنا قعنتا يوح كحرنا. وقال النبي وحولي ما هذه ورتاني معي تاي قال وحولي من الواهنة تجل عسان كحرنا يا وعذر واهن الليلة يا جان كحرنا بويلي. فقال النبي وحولي انزعها اسكسب اسكتر فإنها يد لا تزيدكم الزيادة إلا وهنا جلاع بكوزي زيادة وهو هنا يكادر في المجد تسكتور بالويل. فإنك بالله متى هداد دمته وهي عليك يذكر كاغا أطول سارنتاي ما أفلحت أبدا ولي قام اللي بانس. رواه أحمد باوري بسند لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا والنبي قال وري من تعلق تميمة نينك قرداس حدا فلا أتم الله له الله أمتهم يالو الله أمت ما يسترو. ومن تعلق ودعا نك اسكو خيدا وبهلك عنت كو خيدن جيرنينا فلا ودع الله له إلهي سبحانه وتعالى وحبا وما ترتوي وهبار بك قاديا. وفي رواية waxa ku jirtay من تعلق تميمة نينك قرداس اسكو خيدا فقد أشرك هو قالوبي. ولابن أبي حاتم waxa laga wariyay عن حذيفة أنه وحو رأى رجلا نبو أركي بيده خيد كعنتي سواء كحرنا دن من الحمى قندو كحرني أما عذر مركا جريبها فقدعه كجوي وتلا وحو أغري قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن مر مينيان أكثرهم تتكبدنكي بالله الله مر ميان إلا وهم مشركون يو الشرك كدر يمو يعني مركا ماشان waxaan ka fahmaynaa waxyaalaha la isku xidho ee gacmaha lagu xidho ee la yidhaho waxbay kaa daafici inay nooc min shirkiga ka mid tahay. haddaad isku xidhana wax alla waxay kuu tari aysan jirin ilaa dhib mooyaane. dhib unbaad iyo diin la-aan un weeye. nacam kolka waxyaalaha noocaas oo kale ah tawxiidku lama ogola. ruuxa muslimka waxaa loo baahan yahay inuu aada isu ilaaliyo oo waxaa ka fogaado ayaa loo baahan yahay. darsi توحيدك كوساب سنبوها إن شاء الله تعالى وفي عن إن شاء الله إن درس كلا وكان وكلا هذا كل منه. الله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.